السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhow youtube channelka qaamusta macaade fadlan youtube channelka subscribe dheh like share kuna wadhigel waxaan ku sheegi doonaa shan qodob oo kaga guuleysta Daahir Cali Sow cid kasta oo istagaalaan cid kasta ama ha yaraato ama ha weynaatee cid kasta oo istagaalaan sababta isweydii maxay tahay marka ay mar waliba istagaalaan Daahir Cali Sow qof ay istagaalaan sababta isu guuleysto waxaan ku sheegi doonaa shanta qodob ee ka dambaysa inuu mar waliba qof kasta ka guuleysto waalina istagaalaan ama shirkada ha ahaado ama qof caan ha ahaado ama qof yar ha ahaado qof kasta oo istagaalaan qodobada ka guuleysto waan ku sheegi doonaa qodobka koowaad oo Daahir Cali Sow ka guuleysta ay dadka u ka guusha ka gaaray ayaa wuxuu yahay koow waa qof garab siiya gacan siiya cid kasta oo dhalinyaro oo garab soo weydiisata waa koow soo weydii cid kasta oo dhalinyaro oo garab soo weydiisata buuxda u bixiya markay tabaaleysan yihiin ama fanaan ha ahaado ama shirkada ha ahaado waa nin wariye ah saxaafi ahaan jiray shirkadaha waa nin alcanihi tabaalo gacan u bixin jiray waa nin alcanihi gacan siiya qofka markuu tabaaleysan yahay ama dhalinyaro ha ahaado ama waxa fanaan ha ahaadee oo adkaanaysa mar dhow markuu daniga gacan ku siiyay mar dhow marka isku soo taagto de waa inaad wixii soconto xaqii baa ku soo qabanay sababtaasna keenaysa inuu kaaga guuleysto waa midda labaad wuxuu la saaxiib yahay cid kasta oo gaangister oo dilaa ah ama Hargeysa ha joogta ama Soomaaliya ha joogta ama Muqdisho ha joogta oo aan dhahay ama Jigjiga ha joogta ama Kenya ha joogta cid kasta oo dilaa ah ninkan saaxiib leeyahay ugu taana waa mid sababaysa ee kale oo fursad kale oo siinaysa inuu kaga guuleysto cid kasta ugu midaasna qodobka saddexaad oo kale oo fursad u siinaysa inuu kaga guuleysto qof dadka istigaalsiina waxa weeyaan wuxuu aqoon buuxda u leeyahay qabiilada Soomaaliyeed oo fiirsa adigu qabiil kasta oo Soomaaliyeed aqoon ayuu leeyahay qabiilka taa inuu sheega Soomaalida waxay ku maamaadaa nin raadkaaga yaqaan iyo raaskaaga lama dagaalo sababtoo ah dad nin raadkaaga maama saasa jiri jirtay nin raadkaaga yaqaan ama raaskaaga yaqaan dad dagaalta dimar uu soo raad qaadi meesha kugu imaano ku dilaya wad ogtahay marka qofku yaqaan lama dagaali kartid wad ogtahay adigaba oo qabiilada Soomaalida cid kasta oo ahaato aqoon ayuu leeyahay qofkuna haduu intaas yani xagaas kaamiro uu ku yaqaano way adkaanaysaa inaad la dagaalanto way saaxiibadaadii dadku dhawaw baranaya kadib sirtaadii iyo waxaaga oo dhan way soo fashilmaysaa waxaagina way ogaanaysaa saas ayaa keenaysa inuu ayna kaga guuleysto qodobka afraad ee kale uu kaga guuleysto dadka waxa weeyaan wuxuu haystaa ninkan horta waa nin lacag leh ama baad ha ku qaata ama bahalka ku qaata ama suudan ha ku haystee waa nin lacag leh ogow wax kasta agtiisa way ka fududaan karaan waana sababta keenaysa in dadka guuleysto qodobka shanaad waa nin aftahan ah waa nin wariye ah waa nin saxaafi ah waa qodobka shanaad ee keenaya inuu yani dadka guuleysto waa nin wariye aftahana oo yani hadal hadduu qof dhaho hadalkaas dadka u dhaawacayo dhibaatana u gaarsiinayo waa qodobada shanta ee Daahir Cali Sow ka dambeeya in uu alani dadka guuleysto waa shantaas qodob waa saan isleeyahay waxaan u sheegayaa dhalinyartan ama Nairobi ha joogo ama baalka ha joogo ee istaagaya ee war Daahir Cali Sow waa kan hooyadii caay hadda waan arkaynin oo wiil si xun loo dilo ergaar baalka jooga Kenya ah war Daahir Cali Sow dad adiga kaas caansan dad adiga ka lacag badan shirkado waaweyn oo afka dhulka u galiyay oo la ogyahay maxaa adoo maskiin oo hooyada sheegaysa in tacbaan kugu sidii maxaa afku gelinay maxaa ku dhibay oo ku waalay oo ka galay oo ninkan iyo badiisa iyo ku geliyay adiga sharma booy matid maxaa adiga daba dhigay maxaa ku waalay youtuberadu way ka aaminsan yihiin dantooda yaqaanaan adoo dantaada hayso xaq baan u taagnay haddaad xaq u taagan tahay adoon hooyadii caayin aabihii caayin dhibaato sheegin isaga caay aflagaadee caay isaga laakiin hooyo iyo waalid iyo waxaan iyo tan iyo waxa caayn marka horena meesha aad joogto iska hubso meel ammaan inay tahay dhalinyartan hadda Daahir Cali Sow isku taagaysa Daahir Cali Sow dad waaweyn oo idinka waaweyn ba inta isku taageen oo saas isku taageen baa wixii kala maray la ogayahay ninkan waa nin alcanihi de ku takhasusay oo waqti aad hadda idinku soo qaadateen isaguna ka badan ku soo qaatay waxa idinku hadda aad qaadan